madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Caamay oo magaalada Garowe kula hadlay TV-ga dawladda Puntland ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada geesiyaasha Puntland ay ku xoreynayaan gobolka Sool wuxuuna sheegay inaan cidna joojin karin dagaalka inta maamulka Hargeysa taaka kamid ah dhulka Puntland ay haystaan intaan hadda dagaal la socotaan laba dagaal baa dhacay mana joogsanaya dagaalkani wararka nala soo weydiinayay ummaduna soo weydiinayso waxa aan ka qabnaa waxay tahay hadii caalam oo dhan isu yimaado waxay ila tahay xaqiiqada marnaba Puntland kama digi doonto xaqiiqaduna waxa weeye inta taaka dhul ah oo ay Puntland leedahay Somaliland haysato ama maamulkaasi uu haysto dagaalkan isma taagi doono intuu doonaba ha gaaro waxay ila tahay inaan inamadan yaryar ee la soo maran habaabiyay in laga daayo inaanay dhiman inaanay dhaawacmin inaanay noloshooda ku seegin halka madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhinaca kale si kulul uga hadlay dhibaatada maamulka Hargeysa ku haya shacabka magaalada Laascaano isagoona beesha caalamka ugu baaqay inay fiiriyaan haweenka dhalinyarada waxgaradka iyo suxufiyiinta sida xaqdarrada ugu xiran xabsiyada Laascaano isagoo injineer Caame Xusay in maamulkaasi nafl caariga uu miciin biday xariga shacabka waxaan sheegayaa international community-ga iyo Soomaalida oo aan Soomaalida horeysiinayo international community-gana dambaysiinayo in maamulkaas nafl caarig baan hadda u arkaa waxa uu sameeyay runtii maamulka nafl caariga ah in uu ummadii dhibay xabsiga ka buuxiyay dumarkii iyo ciyaalkii iyo nindoorkii xabsiyada ka buuxaan waxaan maqlayaa UN-ta qayb kamid ah inay Laascaanood ku soo wajahan yihiin iyo Puntland labadaba Garowe waxaan jeclahay inay jeelasha tagaan waxaan jeclahay inay arkaan qadiyada dhabta ah maamulka nafl caariga ah uu dadka ku xirxirayo waxaan leeyahay Peter de Klerk iyo inta imanaysa Laascaanood inaad u kuur gashaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka Sool guud ahaan gaar ahaan Laascaanood hadeer kacdoonkii ummadda in la caburiyo maaha ummaddu ma rabto waxa la leeyahay ummadda dhibta laga daayo waan hubaa ma sii hayn doontaan Laascaanood war dagaalku ciidamadu ka dhaxeeyaa maxaa gaarsiiyay dumarka iyo ciyaalka iyo nindoorka aan dagaalba ku shuqul ka lahayn maxaa jeelasha ugu guraysan hadeedaan nafl caarig ahayn waxa leeyahay laga daayo dadka dhibta international community-gana waxaan leeyahay haadan iyo waxaan aad wadaan intaad iska daysaan waxa sababta xaqiiqada ah ee dabta ah ee waxaan u dhacayaan taabta haddaad wax ka qabanaysaan wax ka qabta haddaad Laascaanood tagtaan jeelasha eega dadka xirxiran eega jeelasha waxa imika ku jira waa dadkii dumaryowgii iyo ciyaalkii iyo nindoorkii weeyaan jeelaka waa kii la jabsaday waa tii reer Laascaanood jabiyeen waa tii maxaabiistii oo dhan laga sii daayay waa tay ka gurteen lacagtii waxaad doonaysaa nafta inaad ku soo celisaan maamulka nafl caariga laakiin nafta ku soo noqon mayso dagaalkuna haddaan idin leeyahay wuu soconayaa international community-guna ma hayaan go'aanka ugu dambaysa ee dhulka yaga anaga hayna haddaan nahay maamulka Puntland iyo shacabka Puntland Cabdisaaq Xasan Farax Puntland TV Garowe